barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal hub culus la isku adeegsaday oo ka qarxay Muqdisho iyo u dhaxeeyay dagaalkan masaxba in ciidamada dawladda ay dhexdooda dagaalameen wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda caasimadda oo jawi kala gashay ayaan idinku soo gudbin doonaa madaxweyne Farmaajo oo goor u duulay dalka Djibouti iyo dawladda federaalka oo diyaarisay ajandaha ay uga hortagayso duulaanka Kenya ee dalka wararkeena kalena waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda dalka Mali oo maanta booqday magaalada Hargeysa iyo dawladda Soomaaliya oo tallaabo ka qaadaysa wasiirka arrimaha dibadda Malawi haddaba maxay tahay sababta dawladda Soomaaliya oo baajisay munaasabado waaweyn oo ka dhici lahaa Muqdisho haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa laba sababood oo ka dambaysa munaasabadahaasi Jubbaland oo soo saartay bayaan ka dhan ah dawladda federaalka garab istaagna ugu muujinayso Kenya iyo baarlamaanka Hirshabeelle oo muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha aan la caleema saarin ee maamulkaasi qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen sabti ah 19 bisha 12 ee December sanadka 2020 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaan fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinka ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidin aan ku bilowno wararkeena dagaal qasaaro dhimasho iyo dhaawac bale geystay ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana ku dagaalamay xaafadaasi ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya sida la sheegay dagaalka wuxuu dhex maray ciidamo military ah oo degmada ku sugan iyo ciidamo u watay Cismaan Xaadoole oo mar soo noqday gudoomiyaha degmada Balcad iyo sidoo kale sarkaal sare oo magaciisa lagu soo koobay Joorreeb wuxuuna dagaalka ka dhacay agagaarka Kawaanbari ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir qasaare dhimasho iyo dhaawac bale ayaa kala gaaray labadii ciidan ee dagaalamay iyadoo dad goobjoogayaal ah ay warbaahinta u sheegeen in dagaalku uu salka ku hayo dhul halkaas ku yaala oo la isku qabsaday dadka deegaanka waxay sheegeen in muranka dhulka uu maalmahanba jiray balse aysan filanaynin in uu dagaal ku qabsan doono xaafadooda iyadoo qasaare dadka shacabka ah uu ka soo gaaray dagaalkaasi wali wax wara kama uusan soo bixin laamaha ammaanka degmada Kaaraan iyo kan gobolka Banaadir iyadoo dagaalka ciidamada dawladda ka wada tirsan ku dhex maray Muqdisho uu muddooyinkii dambe soo badanayay ciidamada dawladda oo gudaha Muqdisho ku dagaalamay saacado waxay cadeen u tahay in taliska militariga Soomaaliya uu ku fashilmay inuu xakameeyo ciidamada hoos yimaada oo wali abaabulan qaabeeleeda qaybihii hore ee wararka ayaa daawanaysaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Djibouti halkaas oo iga qayb gali doonaan shir degdeg ah oo wadamada xubnaha ka urgoboleedka IGAD ay kaga arrinsanayaan xaaladda gobolka madaxweynaha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku helinaya shirkan ayaa madaxda dalalka IGAD hordhigi doona aragtida dawladda federaalka Soomaaliya ee ilaalinta madaxbannaanida wadamada ku midaysan IGAD daris wanaaga xasiloonida iyo nabadda gobolka Geeska Afrika madaxweyne Farmaajo ayaa kulan duceed la qaadan doona madaxda dawladaha xubnaha ka IGAD si loo xoojiyo doorka dalkeenu uu ka qaadanayo qorshayaasha wadajirka ah ee heer gobol kuwaas oo ku dhisan wax wada qabsi iskaashi dhaqaale amni iyo mid siyaasadeed intaba diblomaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee safarka madaxweynaha ku helinaya waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed Danjire Yuusuf Garaad Cumar oo xilkaasi dhawaan loo magacaabay waxaana madaxweyne Farmaajo uu diiradda ku saari doonaa shirkan degdeg ah ee IGAD arrinta kala dhaxaysa Kenya barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mali mudane Nudawa Makaka oo safar shaqo ku yimid Somaliland kulanka waxa laga wada hadlay xiriirka maamulka Somaliland iyo dawladda Malawi sidoo kale waxa kulanka lagu lafaguray sidii ay labada dhinac u samaysan lahaayeen xiriir qoto dheer oo walaaltinimo ay ku dheehan tahay madaxweynaha Somaliland waxa uu wafdiga warbixin guud ka siiyay horumarka iyo isku tashiga dawladda iyo shacabkeedu ay halkan ku soo gaareen isagoo xusay in shacabka Somaliland aanu Afrika iyo caalamka toona ka helin
wixii ay xaqa u lahaayeen oo ah aqoonsi buuxa maadaama ay buuxiyeen shuruudihii dowladnimo ee looga baahnaa. dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee Malawi waxa uu madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland uga mahadnaqay sida milgaha iyo sharafta leh ee dalka loogu soo dhaweeyay. waxa uu madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan uu uga siday madaxweynaha dalkaasi Malawi. kulankan waxa madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, arrimaha gudaha, horumarinta, maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. dhinaca wafdiga wasiirka waxa ku wehelinayay la taliyaha madaxweynaha Malawi iyo waliba sidoo kale xubno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. ugu dambeyn waxa ay wafdiga muddada ay ku sugan yihiin Soomaaliland kulamo kala duwan la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliland ay ka kooban tahay, iyaga oo u kuurgalaya hanaanka ay Soomaaliland ku hormartay iyo dimuqraadiyadda ka jirta. dhinaca kale xogo uu helay warqad TV ayaa waxay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay iyadu markaasi qorsheynayso inay tallaabo ka qaado wasiirka ka socda dalkaasi Malawi ee soo gaaray deegaanada Soomaaliland. waa tahay markaana sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya waxaa sanadkan dabaaldegyo waaweyn loo sameyn doonin aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku beegan 20ka bisha 12aad ee sanad kasta. booliiska Soomaaliya ayaa la aasaasay December 20keedii 1943 waxayna sanadkan u dabaaldegayaan 77 sano guuradii ka soo wareegatay maalintaas oo ahayd ka hor xorriyadda Soomaaliya. mas-uuliyiin ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sheegay in sanadkan aysan jirin munaasabado waaweyn iyo dabaaldegyo, balse la filayo in la qabto isu imaatin kooban amaba kulamo aan sidaas u waaweyneen kaasi oo ay ka qaybgeli doonaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. sababtan sanadkan loo qaban doonin dabaaldega ayaa lagu sheegay in laba arrin ay tahay: cabsi dhanka ammaanka oo ay muujiyeen ila sirdoon oo muhiima, kuwaas oo sheegay in ay jiraan shakhsiyaad iska soo dhigay booliiska Soomaaliya oo damacsan inay fuliyaan weeraro ismiidaamina, iyo sababta kale oo lagu sheegay in mashquulka siyaasadeed oo jira iyo khilaafka doorashada aysan suurtageli karin in la qabto dabaaldegyo maadaama magaalada Muqdisho uu ka jiro culays weyn oo arrintaasi ku saabsan. weli ma jiro war sugan oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya iyo booliiska oo xaqiijinaya in guud ahaan la joojiyay dabaaldega iyo sababta loo joojiyay, waxaana munaasabada ka dhiman saacado kooban. waa hagaag haatanna aan fiirino dawlad goboleedka Jubbaland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xiisada ka taagan dalalka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya inay jabhad markaasi soo abaabulayso kuwaasi oo weerar ku soo qaada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in faragelinta iyo khalkhalka amni ee dawladda federaalka Soomaaliya ka wada gobolka Gado cawaaqib xumada ka dhalata iyo waliba sidoo kale dhibaatada arrinkaasi ka dhalata ay mas'uuliyadeeda dusha saaran doonaan madaxweynaha ee waqtigiisu dhamaadka yahay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliya iyo Kenya waxay leeyihiin xuduud dhan 850 kilomitir. waxaa la yaab leh in Kenya laga difaaco 7 kilomitir oo u dhaxaysa Malkaarile iyo Balad Xaawo ayaa ka mid ahaa qoraalka ka soo baxay maamulka Jubbaland. hadalka ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gabi ahaanba xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay dhigeeda Kenya kadib markii ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya in markaasi dawladda Kenya ay iyadu faragelin qaawan ku hayso dalkeena Soomaaliya. waxaana sidoo kale dawladda Soomaaliya ku eedeysay Kenya in ay markaasi soo abaabulayso jabhad weerar ku soo qaada gobolka Gado iyo arrimo kale oo la xiriira inay faragelin ku hayso maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyaha ka yahay Axmed Madoobe, isla marhaantaana Kenya aysan doonaynin in markaasi la fuliyo heshiiskii doorashada ee Muqdisho dhawaan ay ku gaareen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. arrintan ayaana dab ku sii shidaysa xiisada u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya oo iyagu markaasi safaaradaha kala qaatay kadib markii dawladda Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii ku sugnaa magaalada Nairobi, sidoo kalena laga saaray dalka safiirkii u joogay Kenya magaalada caasimadda Muqdisho. ugu dambeyntiina baarlamaanka cusub ee dawlad goboleedka Hirshabelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa meel mariyay codsi uga yimid madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaaw Xuseen. kulanka baarlamaanka Hirshabelle ay yeesheen oo uu gudoominayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji ayaa looga dooday codsi uu madaxweynaha Hirshabelle ku dalbanayay in loo kordhiyo muddada magacaabista wasiirada. xildhibaanada oo dood ka yeeshay ajandaha kulanka maanta oo ah ansixinta codsiga madaxweynaha Hirshabelle baarlamaanka uu soo hordhigay ayaa ugu dambeyn xildhibaanadu ku ogolaadeen codsiga madaxweynaha qaab gacan taag ah.
madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa haysta 40 cisho uu ku soo magacaabayo golaha cusub ee wasiirada maamulka Hirshabelle iyadoo aan weli la caleemo saarin madaxweynaha maamulkaasi ee Guudlaawe kadib markii doorashadiisa khilaaf xoogan uu ka dhashay iyadoona dhowr jeer looga digay Cali Guudlaawe inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta waa gobolka Hiiraan kadib markii General Xuud oo isagu haysta maleeshiyad hubeysan uu ku goodiyay in haddii Guudlaawe uu yimaado magaalada Beledweyne uu tallaabo ka qaadi doono dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaana iyagu saluugsan nidaamkii doorasho ee ka dhacay ee Jowhar kaasi uu ku soo baxay Cali Guudlaawe oo ka soo jeeda beesha degta gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna sheegeen in doorashadaasi ay ahayd doorasho aysan ku qanacsanayn oo aan loo dhamayn waxaana waantii ugu dambeysay ee gobolka Hiiraan ee markaasi lagu soo xalinayo dadkaasi ka wada wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo isagu mudooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halkaasi oo kulamo kala duwan kula qaadanaya odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan lama oga sida Guudlaawe uu ugu guuleysan doono inuu isku keeno gobolka Shabeellaha Dhexe uu haatan ku sugan yahay iyo kan Hiiraan oo iyagu ka godoodsan nidaamkiisa lagu soo doortay qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo.